kulan wacan saaxiibayaal halkani waa Caasim Media ku soo dhawaada qaybtii shanaad ee qisadii taxanaha inoo aheyd gacalka maxaa kala geeyay ahna qaybtii ugu dambeysay ee qisada balse intaan u gudagelin qisada fadlan muuqaalka laag inoo saar haddii aad channelka cusub tahay nagu soo biir oo subscribe taabo furo gambaleelka si aad u hesho muuqaaladeena. Salmaan markuu ogaaday khiyaanadii iyo qorshaha Samiiri iyo Safa wuxuu go'aan ku gaaray in uu raali geliyo gacalisidiisa Socdi una sameeyo waxay ku qancayso dibna u soo celiyo farxadeedii iyo kalsoonideeda. Samiirana uu marsiyo ciqaab aysan weligeed iloobin maadaama ay isku dayday in ay khiyaanto kalsoonidii saaxiibteed ayna isku dayday in ay kala geyso dad isjecel. Socdi ayuu dhowr jeer wacay laakiin ma aysan ka qabanin. Fariimo ayuu u diray oo uu ku raali gelinayo balse ma aysan u soo jawaabin. Wuxuu ogaay waqtiyada ay guriga ka soo bixayso wuxuu go'aansaday wax walba ha ku qaadato in uu raali geliyo wuxuuna u istaagay guriga hortiisa. Wuxuu sugaba way soo baxday isla markiiba waxay aragtay isaga oo guriga hor taagan. Markaas ayay ogaatay in Salmaan weli uu jaceylka dhabka yahay uuna ka quusan raali gelinteeda. Hadduu ka quusan lahaa ama oo ka caajisi lahaa raali gelinteeda macnaha waxay u qaadan lahayd inuu ka quustay laakiin ma quusan mana uusan isdhiibin. Waayo Socdi waxay noqotay boqorada oo ku riyoon jiray weligeed nin walbana oo ku riyoonayo in uu helo akhlaaqda caqliga deganaanta xishoodka iyo sida ay uga adag tahay nafteeda iyo baahideeda. Qof adag ayay ahayd. Markii aragtay inuu taagan yahay albaabka gurigeeda ayay u muujisay ixtiraam oo waa ay salaantay. Wuu ka qaaday salaanta wuxuuna ku yiri Socdi iga raali noqo inaan kula hadlo ayaan rabaa fursad isii maadaama ay ahayd markii ugu horeysay ee aan qalad ka galo. Waxay ka ogolaatay inay fursad siiso. Wuxuu ku qaaday gaarigiisii danaheedii ayayna soo dhameysatay. Intay gaariga saarneed ayuu u muujiyay in uu ka xun yahay wixii dhaxmaray. Raaligelin ayuuna ka bixiyay wax walbana siday u dhaceen ayuu ugu sharaxay. Waxna kama uusan qarinin wayna ka ogolaatay kadib markay ogaatay in saaxiibadeedii u jecleed sida walaalaheeda oo kale ay u dageen qorsho ay ku kala geynayeen iyadiyo jaceylkeeda. Salmaan ayaa dhahay waa inaan isku kalsoonaano cadow aan naga fogeyn ayaa nagu dhex jiro. Ha u ogolaan inay mardaba naga dhex shaqeeyaan hana aaminin. Iyadana sidoo kale ayay ka codsatay Salmaan inuu ku kalsoonaado oo dhexdooda qofna uusan ka faa'iideysan. Lamaanihii ayaa kala tagay iyagoo isku faraxsan oo isku qanacsan oo ballan ku galay in ay adkeeyaan xiriirkooda. Gurigeedii ayuu geeyay isagana wuu iska sii baxay. Samiira way faraxsaneed waxayna islahayd wax walba sidaad rabtid ayay u socdaan. Ma oga in qorshaheedii fashilmay oo lamaanihii dib iskugu soo laabteen. Waxay caadi u wacaysay Salmaan wayna la sheekaysan jirtay. Isagana in wax walba caadi yihiin camal ayuu ula hadli jiray. Wuxuu damacsanaa in uu ku sameeyo qorshe aysan filayn. Waxay sheekada sidaasi ahaato wax walbana ay u socdeen si dabiici ah. Waxaa kulmay Salmaan iyo Socdi waxayna ka wada hadleen arrimaha guurkooda waxayna ku heshiiyeen in ay isguursadaan. Salmaan ayaa Socdi familkeeda ka doontay waana la siiyay. Wuxuuna bilaabay in uu si diyaar garoobo in uu diyaarsado gurigiisii iyo in uu qabanqaabiyo qorshihii guurkiisa. Balse arrinta la yaabka lahayd waxay go'aansadeen Salmaan iyo Socdi inaysan u sheegin Samiiri iyo Safa ayna kaga dhigan arooskooda lama filaan kaliya ay u sheegaan isla maalinta ay isguursanayaan. waxa uuna ugu talagalay Salmaan sidaasi inuu ciqaab uga dhigo Samiira maadaama ay la damacsanayd khiyaano iyo in ay kala geyso isaga iyo Socdi. xaqiiqdii way xanuun badan tahay qof aad jeceshahay haddana ku matalayo inuu wax kula wado markaad ogaatid inuu guursanayo qof kale waliba adigoon ogeyn oo ay kugu noqoto kadis. Samiira wax ma ogeynin waxayna isla hayday Socdi iyo Salmaan way kala tageen. Salmaan adiga kaliga ayuu kula socdaa. Way la xiriiri jirtay qoraalo jecel ah oo qurux badan ayay isdhaafsan jireen. Waqtiba waqti xiga way sii jeclaanaysay. Saaxiibteed Safa sidoo kale waa ay ku qanacsanayd inay aragto saaxiibteed oo faraxsan oo waliba wiilkii ay jecleed waqti la qaadanayso. qof walba wuxuu jecel yahay inuu helo nolol qurux badan oo farxad leh. Samiira waxay aaminsan tahay wax walba sidii ay ugu talagashay inay u socdaan. Wuxuu waqtiga isgooraba waxaa la soo gaaray arooskii. Arooska waa berito. Socdi ayaa waxay go'aansatay inay hadda u sheegto arooskeeda dadkii khiyaanay ee ay ka dhigan jirtay saaxiibo iyo walaalo oo ay ku aamini jirtay sir walbo si ay u dareensiiso khiyaanada qofka saaxiibka ah ee ku aaminay in ay xanuun badan tahay. Socdi ayaa u dirtay infiitadii saaxiibadeeda Samiira iyo Safa. Markay gaartay infiitadii ayay ku noqotay naxdin iyo lama filaan. Samiira way aamini weysay waxay wacday Salmaan waxayna ku tiri maxaa waaye waxaan aan maqlayo run miya. cod xanuun badan oo ay ka muuqato niyad ayay ku tiri Salmaan ila hadal waxaani ma runba. markaas ayuu ku yiri haa waa run waayo horaan kugu sheegay inaan saaxiibtaa jeclahay balse adiga ma quusan waxaadna isku dayday inaad saaxiibtaa khiyaantid. khiyaanada natiijadeedana waa tana. Samiira ilin ayaa ka soo daadatay teelkana wuu ka dhacay iyadana jooga ayay ka dhacday. saaxiibteed Safa ayaa ku soo carartay Samiira. Samiira maxaa kugu dhacay? jawaab malahan way suuxday biyo ayaa lagu shubay way soo naaxday.
Samiira waxay bilowday inay marna oyso marna ay qosasho. Maskiinta way isku dhaxyaacday oo waxay u adkeysan weysay waxay maqashay in jaceylkeedii ay sida waalida u jecleed oo ay diyaar ku ahayd in ay saaxiibteeda xataa dartiis u disho inuu guursanayo qof kale. Salmaan iyo Sucdi kama qasnayn waxaa la gaaray waqtigii guurkooda sidii la rabay ayuuna u dhacay guurka. Wayna iscalfadeen lamaanihii isjeclaa. Samiira way qalbi wareertay isla hadal iyo cuqdad nafsi ayaa u dambeysay iyo inay dadka dhani ka fogaato oo ay kaligeed noolaato. Safaa waxay go'aan ku gaartay marnaba inaysan saaxiibteed ka fogaan oo xaalad walba ku garab istaagto. Waa saaxiib fiican balse waxay ka talisay khasaaro. Lamaanihiina sidii ayay ku aqal galeen oo ay mustaqbal fiican u dhisteen. halkaa waxaa inoogu soo dhamaaday qisadii taxanaha inoo aheeday gacalka maxaa kala geeyey. Ha iloowin daawada inaad muuqaalkani laag dhahdo. haddii aad janalku cusub tahayna nagu soo biir oo subscribe taabo furo gambaleelka si aad u hesho muuqaaladeena iyo qisooyinka dambe aynu soo gelin doono. tan intaan ku kulmayna qiso cusub iyo muuqaal cusub. nabadgelyo.